marka aad ishuminay 19 sano inaad jirin ma ilowda adiga markii labadeena sariirta awada seexanayna 19 sano jir inaa ahaa ma ilowda qaylada iyo cawaadka ma ilowda asaga fifeeg abuu fifeeg markaad dhehaysa ma ilowda subax wanaagsan xabiibti waan tirtiray bilowga hore ee filimka waxaan aragnaa gabar lagu magacaabo Sam taasoo habeenka shaqadeeda ku dahday. Sam markay habeenkaasi shaqada ka soo baxdo waxay imaanaysaa isbitaalka, halkaasna waxay joogtay hooyadeeda oo xaalad halis ah ku jirtay. Dhakhtarkan wuxuu kula talinayaa hooyadeeda inay u raaxayso maadaama xaalad liidata ay ku jirtay, balse ayada waa ay ka diidaysaa. Subaxii xigayna marka ay shaqada soo aado waxaa horey u soo raacay saaxiibkeeda kaasoo lagu magacaabo Fifeeg, waana cunug yar oo 19 jir ah. Asagana wuxuu ahaa mid wax walba ka caawiyo, sidoo kalena wuxuu ahaa hacker yar oo aad u caqli badan. Maalinkaas marka uu kuleedka kasoo baxo waxa hore u soo maraya ninka taleefanada sameeyo, waxaana hore u keenay taleefan kaasoo ay lahayd Sam, balse ninkan taleefanka ayuu waxyaabo kala baxay. Fifeegna markuu weydiiyo wuxuu ku bilaabayaa inuu ku jeejeeso, asagoo xanaaqsan ayuu Fifeegna meesha kasoo baxaya. Fifeegna habeenkii waxa uu bilaabayaa inuu hacking ku sameeyay Facebookga booliska, isagoona soo dhigaya sawirka ninkii taleefanka, wuxuuna kusoo qorayaa inuu wanted yahay. Isla subaxii xigayna waxaan aragnaa booliskii oo ninkii xiray, asagoo xanaaqsan ayaan la soo deynayaa, balse waxaa meesha ku sugayay Fifeeg, asagoona u sheegaya hadduu mobile cusub siin waayo inuu marka dambe xabsiga dhex geyn doono. Habeenkii xigayna waxay ahayd dhalashada Sam. Fifeegna waxa uu hadiid ahaan ugu keenayaa taleefan iPhone qaali ah oo cusub, ayadana waa ay ka diidaysaa inay hadiida ka qaadato maadaama mid qaali ah ay ahayd, balse asagoo uu ku qancinayaa. Sidoo kale waxaa habeenkaas hadiid u keenaya mid ka mid ah deriskeeda kaasoo lagu magacaabo Rohan, asagana wuxuu ahaa mid aad u jecel, balse Sam habeenkaas waxay sugaysay saaxiibkeeda kaasoo lagu magacaabo Om oo ah actor caan ah, balse habeenkaas uma imaanayo, wuxuuna la joogay xaaskiisa. Ayadana murugada ay ka qaaday halkaas waxay bilaabaysaa inay habeenkaasi cabitaanka iska badido. Dhammaan dadkii markii ay ka kala tagaanna Fifeeg oo keliya ayaa meesha kusoo harayo, wuxuuna bilaabayaa inuu guriga kala hagaajiyo, balse ayada waxay u sheegaysaa inuu iska baxo maadaama ay aad u cabsanaydna waxay bilaabaysaa hadallo aan caadi ahayn inay iskaga hadasho. Subaxii xigayna markay Sam soo kacdo waxay arkaysaa Fifeeg oo sariirta la jiifo. Habeenkaasna maadaama ay cabsanayd waxyaabo qaldan ayaa dhex maray. Samna ayadoo ceeb dareemaysa ay shaqada soo aadaysaa, balse maamulada ayaa ku qaylinaysa maadaama shaqada aysan focus saarayn. Xoogaa kadibna Fifeeg oo qado u wado ayaa u imaanayo, wuxuuna bilaabayaa shaqaalihii meeshii joogay inuu kala diro, asagoon u sheegayo inay qado doontaan, balse ayada ayaa ku qaylinaysa, waxayna u sheegaysaa inuu ka fogaado maadaama ay aad uga xun tahay arrinkii xalay dhex maray. Isaguna wuxuu u sheegayaa waxaas inay caadi yihiin. Sidoo kalena Fifeeg wuxuu sheegayaa inuu ayada jecel yahay, balse ayada arrinkaas ay kasii xanaaqaysaa, waxayna u sheegaysaa mar dambe inaysan meesha ku arkin. Fifeeg oo aad u xanaaqsan habeenkaas wuxuu bilaabayaa inuu hacking ku sameeyo kambaniga, isagoo sirahoodana u diray kambani kale ay xifaartan kala dhexeeyeen. Arrinkaasina warbaahinta ayuu qabsanayaa. Maamuladiina waxa ay dhehaysaa waxaa noola soo dhacay mid ka mid ah shaqaalaha kombiyuutaradiisa. Shaqaalahaas ayaana dhammaan xogeheena bixiyay, waxayna u sheegaysaa qofkii lagu ogaado in ay booliska ku dacweyn doonto, shaqadan ay ka burin doonto. Samna waxaa soo wacay Fifeeg, wuxuuna u sheegayaa inuu asaga kambaniga hagareeyay maadaama uu ku xanaaq maamulada markii ayada ku qaylinaysay. Sam iyo asagana waa ay wada kulmayaan, ayadana waxay bilaabaysaa inay ku qayliso, ayadoo u sheegaysa wuxuu sameeyay inay qalad ahaayeen. Asagana wuxuu bilaabayaa inuu ka dhaadhiciyo inuu jecel yahay, balse ayada waa ay ku xanaaqaysaa, waxayna bilaabaysaa da'diisa inay wax ka sheegto iyo inuu cunug yar yahay. Asagana waxa uu ku dhahayaa marka aad ishuminay 19 sano inaad jirin ma ilowda adiga markii labadeena sariirta awada seexanayna 19 sano jir inaa ahaa ma ilowda qaylada iyo cawaadka ma ilowda asaga Fifeeg abuu Fifeeg markaad dhehaysa ma ilowda ma xasuusto maalinkaas wixii ka dambeeyay labadooda xiriirkooda waa uu xumaanaya. Asagana wuxuu bilaabayaa goob kasta uu joogto inuu kaamiro ku xirto, isagoona dhaqdhaqaaqeeda la socdo. Habeenada kamida ayadoo jiifto wuxuu bilaabay inuu gurigeeda u soo dhaco, asagoona bilaabay kombiyuutarkeeda inuu la wareego. Intaas kadib subaxii xigay waxaan aragnaa Sam oo loo diidayay inay shirkadda soo gasho. Ugu dambeynna xafiiska maamulaha ayaa la geenayaa, ayadana waxaa loo sheegayaa inay goobta iskaga tagto maadaama la soo ogaaday xogta shirkadda in kombiyuutarkeeda laga diro. Ayadana si bahdila ayaa shaqada looga soo ereeyaa. Samna ayadoo niyad-jabsan ayaa waxay soo isbitaalkii oo hooyadeedu ku jirtay, balse waxa si kiis u soo dhawaaqay mobilkeeda, waxaana ka soo dhaxadlayo Fifeeg. Ayadana waxay isku dayaysaa inay damiso, balse codka ayaaba sii dheeraanayo. Dhammaan dadkiina waxay ku dhahayaan codkan naga dami maadaama meesha isbitaal ay tahay. Ayadana markay codka damiwayso waxay bilaabaysaa inay mobilkii dhulka ku garaacdo. Ayadana maalintaas waxaa guriga u imaanaya saaxiibkeeda oo waxaanu u sheegayaa inuu Bombay film kusoo duubiro, wuxuuna ka codsanayaa inay halkaas jawi kula soo qaadato. Ayadana waa ay ka diidaysaa, balse maadaama ay aad u jecleed waa uu ku qancinaya. Ugu dambeynna waa ay raacaysaa. Arrinkaasina
waxaa aad uga caroonayo Fifek asagana wuxuu bilaabayaa inuu tixraac ku sameeyo ayagana markay Mumbai yimaadaan waxay bilaabayaan halkaas inay waqti qurux badan ku qaataan sidoo kalena halkaas waxa uu ku duubanayaa filimkiisii markii ay Mumbai ka soo dhamaadaan meesha waxa uu imaanaya wariyaal aad u tiro badan waxayna bilaabayaan inay su'aalo weydiiyaan maadaama uu caan ahaa waxayna su'aalo ka weydiinayaan gabadha la socota maadaama isaga uu qabay atirisha caan ah isla markiina wuxuu bilaabayaa inuu gaarigiisa fuulo halkaasina waxa uu uga tagayaa Sam kaligeeda isagana dinsi oo kaliya ayuu fiirsanayaa waxaan ogaanaynaa arrinkaasi inuu ka dambeeyay hakarkii Fifek ahaa Samna ayadoo aad u murugsan ayaa waxay imaanaysaa isbitaalka halkaasina waxay ku arkaysaa iyo xaaskiisa oo soo fadhiistay isagana wuxuu cadeynayaa qoftii ay ku arkeen inuusan waxba ka dhaxaynin sidoo kalena uu xaaskiisa jecel yahay sidoo kalena doctorka Sam wuxuu sheegayaa inay hooyadeeda geeriyootay intaas kadibna ayadoo meedka gudihiisa lagu jirna waxa uu imaanaya wuxuuna bilaabay inuu murugada la qaybsado balse ayada aad ay ugu xanaaqaysaa waxayna u sheegaysaa inuu nolosheeda isaga fogaado maadaama si aad u daran u soo bahdilay maalinkii xigayna Fifek waxa soo xiray booliska waxaana soo dacweeyay Sam iyo Rohan balse xariifkan intay askartu mashquulsanaayeen waxa uu hakin ku sameynayaa taleefanka taliyaha isagoona ugu hanjabayo inuu qofta kale uu xiriirka leeyahay u sheegay xaaskiisa asagana taliyaha wuxuu qasbanaanayaa inuu iska soo daayo Fifekna dacwadaas ayuu aad uga xanaaqayaa wuxuuna bilaabayaa dhammaan baraha bulshada Sam inuu ku soo baahiyo qoraalo tuugsi ah kuwaas uu ku bahdilayo iyada balse waxa guriga ugu imaanaya Rohan waxa uu bilaabayaa inuu dagaal ku qaado si xun ayaan halkaas Fifek lagu garaacaya dhinaca kale Sam iyo Rohan oo isla joogan Sam waxay arkaysaa sawir ay yaraantoodu wada galeen waxayna ogaanaysaa inuu ahaa saaxiibkeedii yaraanta ee iskoolka maalintii xigtayna Rohan ayaa bilaabay inuu soo kireysto hakar sida Fifek oo gala ah balse hakarkan ayaa waxa lagu bilaabayaa in laga jabsado akoonadiisa Fifekna wuxuu hakarka ugu hanjabayaa inuu dhammaan lacagtiisa kala bixi doono hadduu meesha iska tagi waayo hakarkiina waa uu cabsanaya meesha ayuu ka cararayaa maalinkaas wixii ka dambeeyana Sam gurigeeda nabad kuma joogayso isagana wuxuu bilaabayaa meel walba inuu uga soo dhaxadlo ayadana intay wareerto ay wuxuu bilaabaysaa guriga inay ka soo cararto waxayna halis u galaysaa inay gawaarida jiiraan waxayna ku soo dhuumanaysaa meel bila kamera ah balse Fifek ayaa ugu horeeyay wuxuuna ugu hanjabayaa inay isu soo dhiibto sidoo kale Rohan iyo Sam waxay baaritaan ku sameynayaan Fifek baaritaankaasna hal gabar ay ka soo helayaan marka ay la kulmaan waxay u sheegaysaa inuu blackmailing ku haysto sidoo kalena waxay u sheegaysaa gabdho badan inuu sidaas ku sameeyay xitaa mid kamid ah gabdhahaas inay isaga dartiisa isku dishay Sam iyo Rohan maqaayad ay ku kulmayaan si uuna Fifek u maqlina taleefanada ay simkaarka ka saarayaan balse dadka kale kuwooda ayuu jabsanaya halkaas ayuuna ka dhageysanayaa ayadana Fifek ay balaminaysaa waxayna ka leedahay qorshe balse isaga waa uu ogaa markuu guriga ka soo bixi rabana hooyadiisa ayaa waxay u sheegaysaa inay ogaatay inuusan college ka dhigan oo iska dhaafay ayadana waxay ugu hanjabaysaa hadduu ku laawi waayo inay u sheegi doonto aabihiisa asagana markuu hoteelku lagu balamiyay soo aado wuxuu bilaabayaa Rohan oo gaari VR ah kaamirooyinka dhex daawanayay inuu sameeyo asagana Sam ayuu soo aadaya wuxuuna u sheegayaa dhammaan qorshoodu inuu ogyahay sidoo kale fariimo ayuu u dirayaa isagoona hadlayay wuxuuna u sheegayaa hadday rabto inuu Rohan badbaado inay isaga soo raacdo asagoo xoog ku haysta ayuu la saldhigiisa keensanayaa ka hor inta uusan ka howlgelina wuxuu bilaabayaa inuu kaamirada hoteelka ka tirtiro inuu isaga iyo Sam kulmeen wuxuuna tirtirayaa wax walba uu cadeynaya inuu isaga hoteelka yimaaday iyo inay Sam hoteelka ka soo baxday sidoo kale wuxuu u sheegayaa haddii ay iswaasho inuu Rohan dhimanayo maadaama sunta daawadeeda uu isaga kaliya haayo sidoo kale waxaan aragnaa halkaasna inay joogtay hooyadiisa oo meyd ah isagana waa uu dilay kadib markay iyada baaritaan ku samaysay waana shakhsi psychopath ah kaasoo jecel qof walba uu jeclaaday iyo qof walba isaga hortaagan inuu nafta dhaafiyo Samna waxay garowsanaysaa xitaa hadduu wixii rabo uu ku sameeyo inuusan dhaafi doonin oo ugu dambeyn nafta dhaafin doono waxayna bilaabaysaa inay la dagaalamto maadaama ay ka weyneedna waxay bilaabaysaa inay cashar u dhigto iyadoona ugu hanjabaysa inay nafta dhaafin doonto markaana ay tahay markii ugu dambeysay uu qof dhibaateeyo ugu dambeynna si silac ah ayay nafta ku dhaafinaysaa halkaas ayuuna ku nafbaxayaa dhinaca kalena waxaan aragnaa booliska oo Sam gacanta ku dhigay iyagoona dambaaris ku sameynayo waxayna wareysanayaan dhammaan dadkii ee la soo macaamishay xitaa maamuladeedii iyo wardiyaheedii booliskana iyagoo og inay iyada dhibkaasi geystay balse wax caddeena iyagoo ka helin oo ku qasban ay iska soo daynayaan dhammaadka filimkana waxaan aragnaa iyada iyo Rohan oo ka soo baxaya saldhigga booliska halkaasna waxaa uga bilaabanaysa nolol cusub oo aanan wax buuqa lahayn waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawatay muuqaalka haddii aad ka heshay ha iloobin inaad muuqaalka like saarto sidoo kale channelkeena subscribe dhahato inta aan kulmayno muuqaal noocan oo kale waxaan inkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo